dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo kala taabacsan dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka dhacay saaka duleedka magaalada Baydhabo. Ugu dambeyn waxaa la isla galay gudaha magaalada oo qaybo ka mid ah magaalada waxaa kala sheeganaya guulo inay ka gaadheen labada geesba. Geeska wasiirka dekedaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Madaxa ay furan ayaa si cad u sheegay inay qaybo ka mid ah Baydhabo gacanta ku dhigeen ciidamada taageersan geeska federaalka oo kaashanaya ciidamada badbaadada Koonfur Galbeed ee isla maamulka hore uga tirsanaa kuwaas oo ka goostay maamulkaas. Geeska Koonfur Galbeed iyaguna waxay sheeganayaan guulo waaweyn oo ay ka mid tahay in dib loo riixay kuwii ku soo duulay xasiloonida nabadgelyada iyo weliba amniga Koonfur Galbeed caasimadooda Baydhabo. Sida ay u dhigeen hadalka labada geesba waxay kala sheegteen sheegashooyin ku aadan guusha laga gaadhay dagaalka, inkastoo filashada laga qabay dagaalka Koonfur Galbeed iyo u dhexeeya geeska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminaya Xasan Sheekh malaha iyo weliba qiyaasta laga qaadan karay ay ahayd inuu noqon doono mid muddo qaata iyo mid raaga, sidoo kalena noqdo mid culus sidii dagaalkii dhex maray ciidamada Soomaaliya taabacsanaa iyo kuwii Jubbaland ee Raas Gaambooni oo kale. Sahal aanay ahayn in duleedka Baydhabo la isla soo gaadho. Ugu dambeynna magaalada Baydhabo qaybaheed lagu murmo markan oo federaalka iyo ciidamada taageersan ay gacan kaga dhigaan kuwii hore u joogay ee taabacsanaa maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaheedu hore ayuu sheegay isagu inay geeska federaalku kaga awood badan yihiin dhanka dagaalka maadaama ay ku qalabaysan yihiin hantidii markan magaca Soomaalida lagu soo qaaday oo ula jeedo Soomaaliya, sidoo kalena ay wataan ciidamadii ka dhaxeeyay geeska Soomaaliya ee qaadanayay cashuurta dadka iyo qoryihii laga bixiyay cashuurta. Sidaa darteed aanay u bibacdhigi karin, isagoo sheegay haddii lacagun markan laga doonayo inay lacagta u soo bandhigaan. Geeska kalese waxa uu sheegay inay intay taalkoodu yahay wax iska celin doonaan balse aanay isdhigan doonin. Saaka madaxweynaha Koonfur Galbeed shalay toole dib loogu doortay Cabdicasiis Laftagareen ayaa isaguna geeskiisa gaadhay xero tababar oo ku taala duleedka waqooyi ee magaalada Baydhabo, halkaasoo uu tababar ugu soo xulayay ciidamo kale oo horleh kuwaasoo ka qayb qaadanaya dagaalka xilligan u dhexeeya isaga iyo Xasan Sheekh ee markan ku dhisan aragtida siyaasiga. Geeska mucaaradka Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn isaguna u taageeraya geeska Laftagareen oo u arko dagaalka oo uu sii wado iyo sidoo kale inuu si adag iskaga celiyo Xasan Sheekh iyo kooxdiisu inay tahay mid guul weyn oo istiraatiiji laga gaari karo iyo inay fashil ku dambeyso rabitaanka Xasan Sheekh xilligan doorashada qofka. Inkastoo laga soo gudbay hanaanka federaalka marka laga hadlayo doorasho qof iyo cod oo suuragal noqon weyday sida damaca Xasan Sheekh muddo kororsiga ka dhex muuqatay. Ugu dambeyn markii uu bedelay dastuurkii ku meel gaarka ahaa ee 2012 Soomaaliya muddada dheerna ku soo dhaqmaysay, hase ahaatee markan ay guurtay dastuur cusub oo qodobadiisa wax weyn laga bedelay, kaasoo lagu sheegay in la dhammaystiray sidoo kalena inta dhimana la dhammaystiri doono geesas dhiman iyo weliba wada hadallo dhiman marka miiskooda la isla yimaado. Dagaalka Baydhabo saaka ayaa la sheegay haddaba inay ka dhasheen khasaaro kala duwan, sidoo kale waxaa dhibta ugu weyn qaba markan bulshada dushooda la isku leynayo dadka magaalada Baydhabo. Waxaa jiri kara inuu ka dhaco magaalada qax baasan iyo weliba arrimo aan xilligan laga suuraysan karin gudaha magaaladan caasimadda ee Baydhabo oo dad badani ku nool yihiin, ahna magaalooyinka ugu dadka badan gudaha Soomaaliya. Haddaba xilligan waxay waajahayaan dadka reer Baydhabo culays iyo cadaadis adag oo ay kala kulmayaan labada gees, rasaasta daryankeeda iyo weliba xabaduhuna waxay u socdaan si darandooriya. Labada geesna ma sameynayaan tudhaale ku aadan dagaalkana looma hayo xal dhaba ilaa xilligan. Geeska federaalku waxay sheegeen 24 saacadood gudahood inay ku soo qaban doonaan Cabdicasiis Laftagareen iyo cid kasta oo kala shaqaysay doorashadii qaadatay 9 saacadood oo keliya, taasoo ay ugu yeedheen inay ahayd sharci darro, cadaalad xumo iyo weliba musuq baahsan iyo waxa ay diidan tahay xukuumadda federaalku. Geeska Koonfur Galbeedna waxay sheegtay wixii hore uga dhacay deegaano ka mid ahaan jiray Soomaaliya oo wax ku darsaday balse hadda aan ka mid ahayn oo kale in markan geeskoodana loo soo rarayo. Tanina waxay muujisay Koonfur Galbeed inay si cad u sheegtay in lala damacsan yahay markan rabitaan aan ahayn kooda in lagu socodsiiyo gudaha Koonfur Galbeed, isla markaana damacu yahay xitaa haddii lagu socodsiin kari waayo si xasiloon xilligan in loo soo kaba xidhay awood iyo xoog in lagu socodsiiyo, taasoo keenaysa xasuuq baahsanay inuu ka dhaco magaalada Baydhabo sidii sanadkii 1988 ka dhacday Hargeysa. Sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda
koonfur galbeed oo shalay tole saxaafadda la hadlay. Dagaalka maanta haddii aynu soo noqonno waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ma jirto muuqaalo la baahiyey labada geesba inta uu socday dagaalku. Waxaa jira in magaalada kala carar iyo roor badani ka dhacay geeska shacabka iyo bulshada. Federaalku waxa uu sheegay gudaha magaalada inuu qaybo ka mid ah gaadhay oo uu qabsaday, balse koonfur galbeed arrintaa waa beenisay oo waxay sheegtay inay dib uga riixday ciidamadii ku soo duulay ee federaalka koonfur galbeed caasimadeeda Baydhabo. Difaacyo adag ayaa waxa kala xidhay ciidamada federaalka ee diyaaradaha lagu keenay koonfur galbeed si ay xukunka iyo wambarka u weydaariyaan Cabdicasiis Laftagareen oo loo arko xilligan inuu la aragti yahay kooxaha mucaaridka ugu waaweyn oo ugu horeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah ninka ugu culus ee kula tartamaya Xasan Sheikh bedelaadda kursiga, taasoo Xasan u arko in fursadda iyo waqtigu cidhiidhi kaga dhigayo la tartanka Farmaajona aanu xilligan suuragal ka dhigaynin dabiiciisa. الروق مجر هذا ولا يدري أنت بولا يا الله هاي